waxaan ku soo dhaweynayaa xogayaa cusub waxaan ku sii fogaadinaynaa ama aan meel fiican ugu ducaynaynaa xogayii hore oo muddo dheer wada shaqaynayna run ahaantiina shaqaalaha dawladda hoose dhammaantoodba ay ka xumaayeen beddelkaas dhammaantoodba ay ka xumaayeen ama aan ka xumayn waxa weeye waxaan doonaynaa oon u rajaynaynaa inuu ilaahay meel fiican geeyo oo meeshan ka sarraysa waxaan u ducaynaynaa xogayihii hore ee xasan yuusuf riiraash waxaan leenahay ilaahay waxa weeye muraadkaaga oo khayr ah ku siiyo shaqaalaha iyo dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan iyo degmadaba si fiican baad u soo wada shaqayseen khayr baan ku rajaynaynaa runtii xasan yuusuf riiraash taariikhdiisa waynu wada haynaa nin dhalinyaro ah dabeecad wanaagsan shaqo wanaagsan dadkoo dhan ay mid u yihiin in uu ahaa waynu ognahay waxaase meesha yaal qadarka eebbe qadarka ilaahay lagama boodo anigu shalay baan imid qaybta booliska barrina waan ka tegi doonaa wakhtiga calafku uu ka dhammaado nin waliba wuu ka tegayaa badin maayo xasan waxaan leeyahay muddadii uu nala shaqaynayey sharaf iyo wanaag buu nagula shaqeeyey waan u hambalyaynayaa halkaa imika uu xilkayga wareejinaya meel ka sarraysan waan u rajaynayaa waa sidaa uu sheegay ee uu shaqaalaha u dardaaray mid lagu calaacalayana maaha darajadana waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa meel ka sarraysa xogayo cusubna waxaanu leenahay kuma cusbo shaqo waxaan leenahay sidaa shaqaaluhu markay xogayihii hore u tagay ugu sii duceeyeen adigana ha kuugu duceeyaan waa runoo xasan 2 jeer baan wada shaqaynay calafku uu xoogaa unayar maad garanaysa laakiin waxaan anagu ku haddana iskaga hornay ma jirto wada dhalasho ayaa taala meesha xasan yuusuf riiraash aan leeyahay meel halkan waanu isugu nimay meel ka sarraysa ilaahay isugu keeno oo ka sii wanaagsan halka diyaadana waxaan leenahay sidaan kaaga sii gudubnay adna ilaahay ku soo gudbiyay calool fooyoobe ku wada shaqeeya xogayii hore ee dawladda hoose xasan riiraash runtii xasan yuusuf riiraash runtii aad baan u hambalyeynaa oo qofku si sabootin kaliya ma waxa loogu hambaliyaa waxa uu qabtay shaygu ama badnaada ama yaraado qofku waxa uu qabto inaad ku hambaliyeyso waa muhiim xasan yuusuf runtii wuxuu ahaa qof ku adag shaqada u wanaagsan sida uu sheegayba waa si runtii cid ka caabanaysa wali ma arkin xasan waxaan ku leeyahay ilaahay meel ka sarreysa ha ku geeyo kulley tanna waa sunnaha dawladda hadda ka hor inta lagu bedelay mar labaad haddana lagu soo celiyay dawladdu markay danteeda ka dhaxayrtay ku soo celin markii kalena waa laga maarmayo dhamaanteen ba wasaas cid kastoo magacaabisa maalin bay tigtaa waan ku ducaynaynaa waxaan ku leenahay kulley nin dhalinyaro tahay haddii ilaahay nafta ku daayana siyaasadda wax badan baa ku adhan halkan iyo meel ka sarreeyna gaadhaan insha Allah ku rajaynaynaa